السلام عليكم أصحابتي قالقة markale kusoo dhawaada saacadii cunto karis asxaabta maanta waxaan sameyn doonaa baasta aad iyo aad u fudud sameyskeeda marka maxaa la hayay waxay kugu qaadanaysaa sameyska insha Allah 30 ilaa 40 daqiiqo marka waxaa ku shubanaysaa yaanyada yariiska ayaa ku shubanaysaa weelka foornada kula geli lahayd baastada foornada ayaa ku karineynaa macnaha yaanyada waxa dhan foornada ayaa ku karineynaa baastada kor ku karinaa iyo chickenka marka waana 500 gram yaanyada yariiska cusbo dhadhankaaga insha Allah dhadhankaaga ku xaranta inta jeceshahay ku shubo marka cusbada sidaas ugu shubatid waxaa ku shubanaysaa barbarooniga oo gaduudka oo shiidan qasam maaha waa iska dhaafi kartaa hadaad rabin macna wax ma ka bedela wax dhadhan moo yeelaa just color kale waaye marka waa ka dhaafi kartaa tuuntana mida shiidan iyo mida oo maaragtay oo caadiga ba isticmaalaa mida shiidan hadaad rabtid waa iska dhaafi kartaa mida oo caadiga ah isticmaali kartaa 2 xabo ilaa 3 xabo waa kana hadirtaan aan 2 xabo ayaa isticmaalaa hal xabana digaag ayaa ku kari doona insha Allah kadibna filfil shiidan ayaa isticmaalaa filfish xitaa cabirkaaga macnaha hadaad waa ka yareysan kartaa hadaad waa ku badsan kartaa adiga ku xiranta insha Allah marka filfisha sidaas ugu shubatid waxa ku soo shuba doontaa saliid olive ama saliid saytuunka sida u taqaanid marka saliidana xoogaa saliid fiican ayaa la rabaa in lagu shubo si oo maaragtay waxba biyo ma lagu kariro marka yaanyadaas biyaha ay dhasho iyo saliidas bas ayay ku karsami doontaa insha Allah marka xoogaa marka saliid ku shubtid si fiican ayaa isku qaqasay waxyaalaha oo maaragtay dhadhanaanka cusbada iyo waxdan marka waxaa isticmaaleynaa feta cheese marka dukaamada dhan supermarket-yada waa ka heli kartaa insha Allah marka taas ayaa dhaxda soo dhigeynaa kadibna mozzarella cheese ayaan isticmaaleynaa oo macnaha farmaajada oo mozzarella la dhahay isticmaali doona insha Allah ayada dhan ayaa isticmaaleynaa mid aan salaatooyinka loogu talagalo waayo mida sidaas ugu soo riday kadibna sida aragteen farmaajada dhaxda taalo saliid kale ayaa dusha ugu soo shubay marka xoogaa saliid oo fiican ay u baahan tahay saliidan waa saliid maaragtay saytuunka sidaan marka ka dhigtid insha Allah foornada ayaa gelinaysaa 30 ilaa 35 daqiiqo insha Allah hadeertan waxaa karineynaa digaaga ayaa dabka saareynaa marka digaagana mid shafka ayaa isticmaal hal xabo xoogaa yar saliid olive ayaa isticmaala wax badan ma wax yariis ayaa isticmaala kadibna jab basal iyo hal xabo tuun ayaa isticmaal doona insha Allah intaas ayaa xoogaa yar isku shiilaa inta sidaan si fiican isku qaqas xoogaa yar sug ilaa ay maaragtay ka jilcayso kadibna insha Allah waxaan ku soo shuba doonaa digaaga oo jarjaray hal xabo digaag shafka ah jarjaray ayaa ku soo shubanaa si yar yaris ayaa u jarjaraysa insha Allah hadaartid baastadan digaag la'aan waa sameysan kartaa qasama digaag inaad ku tirsatid laakiin xoogaa yar maaragtay digaag la'aan xoogaa eber ayaa noqonaysaa marka sidaas darteed digaag ugu darsan doona insha Allah kadib wax yar oo cusbo ayaa ku soo shubanaysaa wax yar oo cusbo marka sidaas ugu soo shubatid kadib waxa ku soo shubanaysaa filfil yar filfish marka ku soo shubtidna barbarooniga shiidan oo maaragtay oo la qalajiyo gaduudka ayaa ku soo shubanaysaa intaas marka isku qastid waxaa soo shubanaysaa dana basbaaska oo maaragtay cayenne pepper la dhahayo marka basbaaska ayaa shubanay basbaaska caadiga gaduudka xitaa waa isticmaali kartaa qasam ma kan inaad isticmaashid hadaa kan heli karin basbaaska gaduudka caadiga isticmaal insha Allah kadib intaan ayaa isku karineynaa digaaga wax biyo kula karinayay biyaheeda raba inay iskula xoogaa karsanto marka dabool markaas aad saartid xoogaa biyo fiican ay dhalaysaa marka biyahaas kula kari waa kana markii daboolka saare ka dajiyay wax biyo kuma taabanin biyahaas dhan ayada ayaa dhashay marka biyahaas marka kula kariyo xoogaa ay gursa rabto ayaa 2 qaada camal biyo ku sii dara sababtoo waxaa dareema in side u bislaaneen marka ay u bislaaneen macnaha maadaama biyahaas darteed ayaa ugu daray
marka taa hadii biyo tan ka badan dhasho muu baahnid inaad biyo dhan ku dartid. Ana laakiin wax yaris biyo ayaa ku daray si oo maaragtay waa kaasaa kasta sirta u jeedinaa ku daray intaas ayaa haddana iskula qalajina kadibna diyaar waayo digaaga waxaa sugeynaa inta yaanyada dabka noogu jirto foornada inta dab foornada kasoo baxaysa insha Allah. waa kana hadeertan sidaan ayay maaragtay inoogu guduudatay digaaga biyo dhan wuu ka qalalay biyo ma loo baahna markaa ku daraysid yaanyada biyaha dhan inaa qaleel ka dhigtid ayaa la rabaa insha Allah. hadda intaa waxaan karinaynaa digaaga iyo baastada kulli yaanyada dabka ayay noogu sii jirtaa marka sidaas darteeda baastadan waqti badan kaama qaadanayso waxa dhan boobsiis waaye qado aad iyo aad u fudud ka dhigi kartaa cashan waa ka dhigi kartaa insha Allah. haddana baastada ayaa karinaynaa marka baastada biyo kulul ayaa dabka digsiga soo saartay biyo kulul ayaa kusoo shubtay maaragtay kadibna cusbada iyo saliid ayaa kusoo shubanaa kadibna baastada ayaa sii karinaa insha Allah. baastada hantarta karin waxay qaadanay 10 ilaa 11 daqiiqo 10 ilaa 12 daqiiqo camal ay karsamaysaa marka intaasna weli yaanyada dabka ay noogu sii jirtaa oo maaragtay way sii karsamaysaa marka maadaama 30 ilaa 35 daqiiqo ay ku sii karsamayso inta kaleeto waxaa ku bobsiisa kartaa baastada iyo chickenka inaad sii karisid insha Allah. insha Allah baastadii way noo karsantay waa soo miiraa maaragtay yaanyadina waa inoo diyaar waa kana foornada ay kasoo baxday sidaas ay isku noqotay marka yaanyada iyo toonta iyo maaragtay farmaajada si fiican ay iskugu jijibinaysaa. marka sidaas kulli iskugu jijibisid farmaajada iyo yaanyada iyo waxdan kadib baastada ku karsaneed ayaa ku darsanaysaa baastadana marka sidaas ugu soo darsatid kadib waxaa ku darsanaysaa chickenka oo ku karsaneed digaaga ku karsaneed ayaa ku soo shubanaysaa kadib baastadaadu waa diyaar masha Allah. baastadan aad iyo aad ay u fudud asxaabteeda qaaliga marka waxaan rajeynayaa inaad barooysan insha Allah. asxaabta channelka ku cusubtihiin insha Allah subscribe ka iga hilmaamina hada hore noola joogteena like tii share insha Allah iga hilmaamin subscribe marka saartid gambalelkina furtid hilmaamin sida aa kugu soo dhaco wax walbo video walba soo dhig mustaqbalka insha Allah. asxaabteeda qaaliga waxaa isku arki doonaa videoga xiga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.